kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad oo xiliyadan oo kale aad la socotaan qodobada maanta aynu idin hayno waxa ugu waaweyn ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo lagu wargeliyay in dalku uusan xilligan lahayn hay'ad sirdoon oo hesha xogaha amni iyo qarxada shabaabku mareegaan warbixin iyo xog dheeraad ayaynu arrintan idinkaga haynaa oo barnaamijka ku daawan doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelo oo bannaanka keenay qorshaha Imaaraadka Carabtu ka leeyihiin wadamada bariga Afrika Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sheegay in madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre shirqool siyaasadeed u dhigeen gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Yariisow kadib markii xalay uu ku dhawaaqay xaalad degdeg in la geliyo magaalada Muqdisho waxaan kaloo warbixin dheeraad idinkaga haynaa jahawareer ka taagan xaaladda degdega ee la geliyay magaalada Muqdisho diyaar garooba daawadayaal qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo barnaamijka ku daawataan mar kale waxaan wanaagsan saaxiibayaal waa axad 31 bisha 3 ee Maaj sanada 2019 haddii aad ugu cusub tahay daawade fadlan subscribe dheh channelkan oo taaba qaybta gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela barnaamijyada aynu halkan ku soo gudbino sidoo kale daawadayaal waad ku mahadsantihiin inaad nala wadaagtaan fikirkiina ku aadan sida aad u aragtaan warbixinada aynu idin soo tibino tanina waxay noo tahay dhiirigelin haddii aad nagala qayb qaadataan barnaamijyada haddii aynu ku bilaawno barnaamijka tani daawade waa magaalada Muqdisho waa caasimadda ummadda Soomaaliyeed waxa ay sanado badan la daaladhacaysaa dhibaatooyin isbiirsaday oo amni darradu hormuud ka tahay Muqdisho waxa in badan ay u dul qaadatay qaraxyo aan loo meel diin dhammaan aan lahayn dalal qorsheysan oo shacab iyo shaqaale dawladeed kala reebin hayeeshee maalmihii ugu dambeeyay dadka caasimaddu waxay dareemeen cabsi dheeraada oo dhanka amniga ah kadib markii qaraxyadu isdaba joog noqdeen madaxda ugu sarreysa dawladda federaalka iyo kuwa maamulka gobolka Banaadir marar badan ayay shirar amni ka yeesheen caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho mase noqon kuwa la mahadiyay ugu dambeyn xalay ayaa lagu dhawaaqay xaalad degdeg oo Muqdisho la geliyo si amni loo helo balse su'aalo badan ay arrintan ka taagan gudoomiye Yariisow oo dawladda federaalka Soomaaliya ugu magacaaban maamulka gobolka Banaadir ayaa shir saxaafadeed oo qabti ku sheegay in xaalad degdeg la geliyo caasimadda markii amnigeeda uu taag waayeen isagoo sidoo kale ka dhawaajiyay in beegso doonaan meelo gaar ah oo loogu sheegay dagaalamayaal ka tirsan shabaab shacabkaas waxa uu ku beer la xawsaday in laamaha amniga la shaqeeyaan waxa bilowday howlgallo ay ciidamada amnigu ay ka wadaan caasimadda waxaan rabnaa shacabku in howlgalladaas ay hay'adaha amniga kala shaqeeyaan u fududeeyaan u sahlaan si aan amnigu waa waxaan wada leenahay aan wada ceshano waa dareemi karnaa in culaysyo ka imaan karaan howlgallo haddii la qaadayo oo guriyihii la baarayo oo xaafadihii la tegayo taasna waxaan rabnaa in culeysyadaas jiro dulqaad la muujiyo samir annaga maamulka haddaan nahayna sidii shacabka loogu adeegi lahaa waxaan diyaarinay basas iyo ambulance iyo waxalaale wixii lagu taageeri lahaa shacabka gaar ahaan shacabkeena tabaalaysan arrinta isweydiinta mudan ayaa ah Muqdisho markii hore xaalad degdeg ah ma ka marneed iyada oo la xasuusto wadooyinka ugu badan ee caasimadda in lagu jaray dhagxaan waaweyn oo xitaa shacabka aan loo ogolayn in ay ku maraan su'aasha hadda taagan ayaa ah mar haddii wadooyinka Muqdisho iyo xaafadaha markii hore kala xirnaayeen qaab noocee ayuu noqon doonaa go'aanka xaaladda degdega lagu geliyay caasimadda ummadda Soomaaliyeed amnigeedu wax ma iska bedeli doonaa dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah siyaasi mucaarad ku ah dawladda hogaamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kalena wasiir hore ka soo noqday dawladda Soomaaliya isla markaana mar u tartamay xilka madaxweynaha dawladda federaalka ayaa ka hadlay go'aankii xalay gudoomiye Yariisow oo ku dhawaaqay ee xaaladda degdeg ah lagu geliyay magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in Yariisow ay shirqool u dhigeen madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre kuwaas oo raba sida uu sheegay inay madaxa u saaraan fashilka amni ee caasimadda Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay inaysan gudoomiye Yariisow hoos tigin taliyaasha booliska iyo nabad sugidda
isla markaana uusan aqoon sababta uu ugu dhawaaqay xaalad degdeg oo ay gashay magaalada muqdisho maadaama taliyayaasha laamaha amnigu aysan isaga ka amar qaadan. waxa uu sheegay haddii la doonayo cid loo raacdo amniga muqdisho in la helo maqaam ay yeelato caasimadda ummadda Soomaaliyeed, shacabkuna go'aan ay ka gaaraan cidda ay u dhiibanayaan si loogula xisaabtamo, isagoo intaas wixii ka baxsan ku sheegay in madaxda ugu sarreysa dowladda federaalku amniga caasimadda ay mas'uul ka yihiin isla markaana aysan ka cararin mas'uuliyadda saaran. hadalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa imaanaya xilli gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Yariisow xalay uu ku dhawaaqay in xaalad degdeg ah la geliyo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Cabdiraxmaan Yariisow gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku tilmaamay go'aanka laga gaaray amniga Muqdisho ee xaaladda degdega lagu geliyay mid lagu xoojinayo nabadgelyada oo muddooyinkii ugu dambeeyay faraha ka baxday isla markaana qaraxyo badan oo dhowr mar ay iska daba dhaceen. gudoomiye Yariisow oo aan dafirin in xaalad amni lagu jiro waxa uu tilmaamay dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir inay isla garteen in wax laga bedelo amniga howlgallo dheeraadana la sameeyo. wahagaag warqad ay nagala socotaan qaybihii hore ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa. qodobo dhowr ah inoo harsan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Jabuuti oo shaaciyay qorshaha Imaaraadka Carabtu ay kala yihiin gobolka Geeska Afrika. ha yeeshee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa la sheegay in lagu wargeliyay dalku inuusan xilligan lahayn hay'ad sirdoon oo hesha xogaha amni iyo qaraxyada shabaabku maleegaan. macluumaad dheeraad ayaa laga helayaa kulamays daba joog ah oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaas oo looga hadlay amniga caasimadda isla markaana inta badan uu shir gudoominayo kulamadan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre. shirarkaasi oo ay ka mid ahaayeen kuwo degdeg ah oo maqribnimadii xalay isugu yimaadeen golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa si weyn loogu faraqeeyay amniga Muqdisho iyo sida wax looga bedeli karo. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ayaa la sheegay in lagu wargeliyay dalku inuusan xilligan lahayn hay'ad sirdoon oo hesha xogaha amni iyo qaraxyada shabaabku ay maleegaan, taas oo fududeysa inta badan magaalada Muqdisho maalmihii lasoo dhaafay qaraxyo dhowr ah inay ka dhacaan. hay-adda sirdoonka Soomaaliya oo hadda madaxa uu yahay Fahad Yaasiin ayaa ku guuldareysatay inay hesho xogaha iyo weliba qaraxyada qorsheysan oo shabaabku ay maleegaan, taas oo toddobaadkii lasoo dhaafay Muqdisho ka dhigtay mid qaraxyo martigelisay. ra'iisul wasaare Kheyre ayaa la sheegay inuu ka carooday arrintan ku saabsan in hay'adaha sirdoonku aysan helin xogaha la xiriira dhanka amniga iyo shirqoollada shabaabku ay ka geystaan magaalada Muqdisho. ra'iisul wasaare Kheyre ayaa la tilmaamay saraakiil ka tirsan hay'adda nabad sugidda Soomaaliya inuu amray in markaasi ay badiyaan howlgallada iyo raadinta xogaha la xiriira dhanka amniga maadaama muddooyinkii ugu dambeeyay aan laga warhayn amaba aan la helin xogaha la xiriira qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho iyo dilalka qorsheysan. ra'iisul wasaare Kheyre oo kulan degdeg ah maqribnimadii xalay la yeeshay golaha wasiirada dowladda Soomaaliya waxa uu dhammaantood ka dhageystay warbixino la xiriira dhanka wax looga qaban karo amniga magaalada Muqdisho, waxaana uu saaray wasiiro ay ka mid yihiin amniga iyo arrimaha gudaha kuwaas oo go'aan ka soo gaara qaabka xukuumadda Soomaaliya dhanka amniga u wajahayso. xukuumadda ra'iisul wasaare Kheyre ayaa cadaadiskii ugu badnaa waxa soo wajahay maalmihii lasoo dhaafay kadib markii magaalada Muqdisho si isdaba joog ah qaraxyo ay uga dhaceen kuwaas oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. go'aankii xalay uu gaaray gobolka Banaadir ee xaaladda degdega ah lagu geliyay magaalada Muqdisho iyo shirarkan degdega ah ee looga hadlayo dhanka amniga ee ra'iisul wasaare Kheyre laamaha amniga iyo wasiirada uu la yeelanayo waxay imaanayaan xilli magaalada Muqdisho xaalad amni darre ay martigelinayso shacabkuna walaac dheeraad ay muujinayaan. wahagaag daawadayaal warqad ayaad nagala socotaan barnaamijka arrimaha siyaasadda Soomaaliyana waa daawanaysaan. madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay go'aanka dowladda Imaaraadka Carabta ee ku aadan wadamada Bariga Afrika. Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah waxa uu uga hadlay khilaafka iyo dacwadda u dhaxeeya dowladda Jabuuti iyo shirkadda DP World ee laga leeyahay waddanka Imaaraadka Carabta.
Geela ayaa sheegay in DP World iyo Djibouti heshiis ay gaareen markii uu dhamaadana DP World lagu wargeliyay in dib u eegis lagu sameeyo waxa ka dhaqan galay heshiisyadii dowladda Djibouti ay la gashay ha yeeshee shirkadu arrintan ay ka biyadiiday. Master Geele madaxweynaha Djibouti ayaa tilmaamay Imaaraadku inay doonayaan shirkadda DP World inay ku qabsadaan dekedaha gobolka Geeska Afrika si markaasi gumeysi dadban ay ugu haystaan sida uu yiri. Waxa uu sheegay in shirkadda markii hore la dhihi jiray Dubai Post balse adduunka Djibouti ay bartay taas oo u fududeysay wadamo ka mid ah caalamka inay ka howlgasho. Madaxweynaha dowladda Djibouti ayaa intaas ku daray in dekedaha Imaaraadka Carabta ay ka hooseeyaan kuwa bariga Afrika sidaas darteedna DP World ay diideyso in kuwa Afrika ay ka hormariso kuwa Imaaraadka Carabta si aan loola wareegin ganacsiga dekedaha Imaaraadka Carabta. dhawaan ayay ahayd markii isku dhac uu dhex maray dowladda waddanka Djibouti iyo shirkadda DP World taas oo ugu dambeyn sababtay shirkadaasi waddanka Djibouti in laga ceeriyo. shirkadda DP World ayaa waxay maamushaa dekado dhowr ah oo qaarkood ay ku yaalaan Soomaaliya waxaana ka mid ah dekadahaasi tan Berbera iyo sidoo kale tan Boosaaso iyadoo xusid ay mudan tahay baarlamaanka Soomaaliya inay gaareen go'aan dalka looga mamnuucay shirkadda DP World taas oo aan weli dhaqan gelin. guud ahaan daawadayaal waa naga intaas barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad intaynu mid lamida ku kulmayna haddii oo aan leedmo nabadgelyo. ku soo dhawow warqaad press haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar siina share garee haddii aad nagu cusub tahayna subscribe saar si aad u hesho muuqaalo cusub fikirkaadana noogu soo gudbi qaybta commentiga aad baad u mahadsantahay.